share waa maxay marka share of agricultural in economic development intee in la eg ayuu agriculturalku kaga share gareyn karaa ama kaga share gareeyaa economic development oo macnaheedu uu yahay role intee in la eg ayuu ku leeyahay share intee in la eg ayuu kaga qayb qaadanaya it means ma boqolkiiba 10 ma agricultural sector-ka ayaa cause gareynaya economic development-ga mise sharekiisa waa boqolkiiba 80 mise sharekiisa waa boqolkiiba 10 mise sharekiisa waa boqolkiiba 99 mise sharekiisa waa boqolkiiba 100 yani sharekiisa intuu la eg intee in leg ayuu share gareeyaa agricultural marka uu ka share gareeyaa economic development-ga ee wadanka uu sameynayo so the share of agriculture in economic development changes marka isbedela share-ka change-gu sameynaa marka maxay ku xiran tahay with the growth of an economy inta iska xiran economic wadanka growth-kiisu ayuu ku xiran yahay the share of agricultural in economic development ayuu ku xiran yahay maxaa isku xiran marka the share of agricultural in economic development with the growth of the general economy ama the whole of the economy growth ku sameynayo iyo waxa isku xiran agricultural share in economic development way isku xiran yihiin so relation waa maxay marka in the initial stage its share is relatively high but its relatively significant decline as non-agricultural sector growth kullama non-agricultural sector growth uu sameeyo warshadihii iyo tertiary sector-kii iyo maxaa la yiraahdaa financial sector-kii iyo kullama growth ay sameeyaan maxaa yaraanayo waxa yaraanayo agricultural growth-ka yaraan agricultural share-ka yaraanayo sababta uu yaraanayo waa maxay lana shift of manpower dhacayo shift of resource dhacayo oo increase of waxa dhacayo non agricultural sector-ka dhacayo taasaa waxay cause gareynayay role in looga badnaado salahan Soomaali oo kale hadda Soomaaliya joognaa Soomaali oo kale hadda waa agricultural basic waa maadaama agricultural basic uu yahay Soomaaliya hadda wadan aan horumarkeedu uu iska yar yahay marka la fiiriyo GDP-ga dawladda marka la xisaabo economic development-ka wadanka uu sameeyay sectorada midkee share-kiisu uu badan yahay haddii hadda Soomaaliya waa la xisaabinaa haddii la yiraahdo I'm sure agricultural sector-ku ayaa wuxuu noqonaa 80% or above ayuu noqonaa sababtu waa maxay only it is the only sector hadda dhaqaaqo marka active ka ah waay sababtu waa maxay because economic growth Soomaaliya waa less and economic growth Soomaaliya ma bajiraba and economic growth Soomaaliya mar walba waa negative way there is no economic growth maadaama economic growth uusan jirin number 1 maadaama non agricultural sector uusan growth uusan sameynaynin ayaa waxay positive u noqonaysa agricultural sector so wadanku kullama non agricultural sector aysan dhisnayn economic growth wadanka uusan jirin wadankaas marka la fiiriyo economic development-ga haddii uu jiro share ahaan waxaa badnaanayo ama economic wadanka dhaqaalaha national GDP-ga ama GDP-ga wadanka marka la xisaabiyo share ahaan waxaa ugu badan agricultural sector-ka ugu badan as non agricultural sector uu growth sameeyo oo growth-kiisu kor uu bilaabo inuu ziyaado and also the economic growth-kan uu bilaabo inuu ziyaado taasaa maxay cause gareynay waxaa yaraanayo share of non agricultural share of agricultural sector-ku uu yaraana so in this case marka relation-ka marka inaan soo saarnaa rabnaa waa maxay relation-ka u dhaxeeya agricultural sector iyo non agricultural sector so agricultural sector and non agricultural sector waa maxay kullama agricultural sector-ka uu ziyaado dhanka waxaan ka hadlaynaa share-kan ka hadlaynaa kullama non agricultural sector-ka uu ziyaado ayaa maxay cause gareynay the share of agricultural sector-ka uu yaraana kullama non agricultural sector uu sameeyo growth non agricultural sector kullama growth uu sameeyo ayaa maxay cause gareynay agricultural the share of agricultural sector-ku decline so relation waa maxay waa indirect relation waxaan ka hadlayaa ma ahan agricultural-ka hadduu ziyaado economic growth non agricultural ma ziyaada masuu yaraana maaha waxaan ka hadlayaa waxaan aan compare gareynaa waa maxay waa non agricultural growth iyo agricultural share in economic development labadaas aan rabaa inaan compare gareeyo so haddii non agricultural sector-ka uu growth sameeyo maxaan leeyahay the share of agricultural sector-ka uu yaraana in economic development
clear soma midda labaad oo ah economic growth as economic growth the share of non agricultural sector asigana uu yaraana macnaheedu waa maxay economic growth mar walba waxaa haya impact ah non agricultural sector oo ah warshadihii tertiarygii financial sectorkii kuwaas oo dhan non agricultural sector la yiraahdaa so marka kullama economic growth uu yahay macnaheedu the share of agricultural sector uu yaraana saddexdaa isku qabanayna marka maxaa leenahay non agricultural sector hadduu growth uu sameeyo maxaa growth sameynaya economic growth aa imaanaya economic growth hadduu yimaado the share of agricultural in economic growth uu yaraana wasla fahna soma wasla fahna umalayna marka in this case marka qaabkaas isku saameynayaan a highly developed economy almost has only a small proportion to its population engaged in agricultural sector marka la fiiriyo marka wadamada horumar hadda Europe iyo wadamadaas horumaray oo developed countries ka marka la fiiriyo the share of agricultural sector waa less waa very low way aad u yar sababtu waa maxay waa the smallest proportion way marka la fiiriyo war economic growth kiina ama GDP giina percentage intee in leeg ayuu agricultural ka yahay marka la yiraahdo waxay leeyihiin board waa 1.5 2.5% 3.5 waa share yar ku sheegayaan share yar lagu sheegaa sababtu waa maxay laana wadamadaas marka waxay xooga saareen non agricultural sector-kii xooga saareen so kullama wadanku development-kiisa uu sii ziyaadana kullama wadanku xooga uu saaro industrial sector tertiary sector financial sector waxa la yiraahdo financial market financial institutions all of these sectors ku xooga saara taa maxay koos gareynay in ay yaraato agricultural sector-ka power-kiisu inuu yaraado ayay koos gareynay so a highly developed economy almost has only a small proportion to its population engaged in agricultural sector. So as economic development takes place, as economic development takes place in a country, so the أستاذ عدك ما مقنع عدك أسكي حرت حرنا سوري ران لغض so maxana ana marka as economic development وزياده ama haya uu noqdo ayaa maxay koos gareynaysaa the share of agricultural sector ka hoos u dhaca laana dadku maxay sameynayaan laba shay ay isbedelaya maxay employment-gana movement-yu sameynaa national income-kana 100% wuxuu ku tiirsanaana non agricultural sector-ka ku tiirsanaana taasaa marka waxay koos gareynaya marka in agricultural activities uu yaraado hadda wadamada Europe marka la aado dadka still agricultural-ka yani ku shaqeeyo beerleyda oo livestock ku shaqeeyo waa few people waay dad aad u yar waay dad fara ku tiris waay aad u yar dadka hadda warshadaha le iyo dadka oo yani qudaarta iyo waxa soo saaray iyo yani shirkado yar waay majority of population waxay aadeen non agricultural sector-ka aadeen as a labor force يعني the labor force ga majority-giisa non agricultural sector-ku aada so marka xoog oo dhan wuxuu wada aada marka non agricultural sector-ku aada taasaa waxay koos gareynay the share of agricultural sector-ku marka inuu yaraado so marka relation-ku waa indirect relation waay waa indirect yani waa negative relation waay oo macnaheedu waa maxay haddii non agricultural sector-ku uu growth sameeyo taa waxay koos gareynaysaa inuu economic growth uu ziyaado economic growth hadduu ziyaadana maxaa leenahay agricultural sector-ka sharekiisa in economic development-gana maxaa leenahay decline ku dhacayo uu yaraana hoos u dhaca ku imaana uu sii yaraana so in this case there is an increased demand for maxaa leenahay shifting of surplus labor from the agricultural sector so marka demand-ga waxaa badanaya marka in marka dadka ay kasoo wareegaan oo ah agricultural-ku marka shaqaalihii inay kasoo wareegaano inay yimaadaan non agricultural sector inay yimaadaan ayay koos gareynaysaa so the surplus labor is attracted toward other source marka other source-ga marka la soo wada aadaa for earning more and getting better job opportunity laano development agricultural development soo ku imaana
وين more machine الاستعمالها وين more technology الاستعمالها more technology الاستعمالها محو كوزغرينا إنه يراد الليبر فورس إنه يراد سالهان بيرتان أو كله سالهان و10 هكتار واحد ما دام 10 هكتار أي تايم عن كسر قاعدنا وحبها أنت هاي 20 روح for example هكتار كيبو وحبها هي 2 روح for example واحد ما دام هكتار كيبو وحبها هي 2 روح ما دام هكتار كيبو وحبها هي 2 روح haddii meeshii hectarkaas meeshii dadka ay ka shaqeyn lahaayeen haddii 2 mashiin aan keeno maxay koosgareynay hectar walba inaan 1 ruux aan ka maarmo hectar walba inaan 1 ruux aan ka maarmo so marka hectar walba maxaa ku soo aadaya labor force-ga 1 ruuxa soo haraayo so marka taa waxay koosgareynay marka 4 mashiin iyo maxaa imaanayo iyo 10 shaqaalo meeshii 4 mashiin aan keenay haddii 6 aan ka soo dhigo 10 shaqaale xitaa maxaan ka sii maarmaa 3 aan ka maarmaa 7 bis aan u baahanahay so marka as increasing the role of technology in agricultural ayaa maxay yareynay labor force-ga marka shaqaalihi yaraanayo in agricultural maadaama shaqaalihii uu yaraaday shaqaalihii intay u wareegayaan non agricultural sector-kii u wareegayaan oo warshadahaas iyo tertiary meelahaas ay galeen waa intaad ku shiigaa waa intaas so the surplus labor ayaa dhacaya the surplus labor ay imaanayo so the surplus labor inuu yimaado maxaa cause gareey because technological position kooda galaya boss kooda technology aa galaya so bosska technology galaya muxuu cause gareeyna inuu surplus yimaado so the surplus labor ayaa muxuu attract gareeyna marka in other sources inay raadiyaan si ay u helaan more income shaqaalihi marka maxay aadayaan magaalada inay yimaadaan oo shaqooyin kale inay raadiyaan si ay more income u helaan and also maxaa leenahay to get better job opportunity raadinayaan fursado cusub raadinayaan so magaalkii marka baadii way ka imaanayaan marka magaalka la soo wada aada so the result of diversion of surplus labor from agricultural to non-agricultural sector is due to advanced so marka in shaqaalihii inuu soo wareego uu ka soo wareego agricultural sector-kii u soo wareego non-agricultural sector-kii maxaa cause gareenayo waa tii hadda aan sheegay advancement of technology and the use of machines in farming labadaa marka hoos ka xariiq labadaasaa isbedelay oo ah teknolojiyadii horumar yani ka dhacday iyo maxaa leenahay mashiinkii in lagu isticmaalo beerihii iyo marka ziyaaday isticmaalka mashiinkii in beeraha mashiin lagu isticmaalaa ziyaaday balaas maxaa dhacay teknolojiyadii iyadana marka way horumartay labadaa factor ayaa maxay koosgareynayaan in supply of surplus of labor inuu dhaco labadaa factor ayaa waxay koosgareynayaan surplus of labor inuu dhaco so the surplus of labor haddii uu dhacana taa maxay koosgareynay dadka inay soo wada aadaan non agricultural sector-ka inay soo aadaan inay shaqooyin ay ka helaan taasaa maxay koosgareynay non agricultural sector muxuu helaa waxa la yidhahdo shaqaale cheap uu helaa shaqaale cheapka uu helo marka uu helo ayaa muxuu koosgareynaa isagana inuu more production uu sameeyo oo wax soo saarka inuu ziyaadiyo ayay marka ay role way ku yeelanaysaa so marka wax soo saarka ay ziyaadiyaan agricultural sector non agricultural sector-ki ayaa waxay koosgareynayaan mar labaad in economic growth uu siyaado so economic growth uu siyaado maxay keenayaan marka the share of agricultural in the economy ayaa maxaa leenahay wuxuu noqonayaa less uu noqonayaa waxaan u maleynayaa inaan isla fahanaa u maleynayaa shirka yani the shirka marka la sheegayo shirka qaabkaas uu noqonaa yani shirka uu ku leeyahay ama shirka agricultural uu ku leeyahay economic development-ga that's the share so shirka marka maxaa leenayaa decline as increase the economic development as increase the economic growth and also as increase the non-agricultural sector labada increase ay sameynayaan ayaa maxay koosgareynay the share of agricultural sector in economic development sharekiis inuu yaraado so in marka shareka uu yaraadana oo kan uu ziyaadana maxaa koosgareynayo laba factor aan nahnay factor koowaad waa maxay teknolojiyadii marka ay horumartay balaas maxaan nahnay in beerihii in lagu isticmaalo machine so labada factor maxay keenayaan in labor surplus of labor inuu yimaado so the surplus of labor muxuu keenaa laborka inuu markaa sameeyo shift inuu sameeyo shaqaalihii markaa inay sameeyaan shift ay sameeyaan markaa ay kasoo guuraan agricultural sector waxay usoo wareegayaan non agricultural sector ayay usoo wareegayaan non agricultural sector ayay usoo wareegayaan the last topic marka in chapter 2 interdependency between or relation between
agricultural and industry qaabkay iskugu xiran yihiin marka agriculturalku industrygu interdependency ka dhaxeeya waa sidee qaabkay iskugu xiran yihiin yani relationkoodu muxuu noqonaa relation ka dhaxeeya waa maxay labada there is interdependency relation between agricultural and industry yani interdependency relation ka dhaxeeya yani midba midka kale uu ku xiran yahay midba midka kale ayuu ku xiran yahay that's why interdependency aa jira yani agriculturalku wuxuu ku xiran yahay industryga sidoo kale industryga isagana wuxuu ku xiran yahay agricultural so agriculture and industry so agriculture and industry are the two control of an economy waa labada shay marka economiga controla oo role weyn ku leh economic growth ka kor u qaada waa labada waay ayaga control economiga ayaga gacanta ku haya so the development of one sector depends on the development of other sector intaa iska xariiq marka يعني mid kamid ah inuu development sameeyo maxay ku xiran tahay midka kale inuu development ku dhacay ku xiran tahay يعني mid kamid ah haduusan development sameynin it is very difficult waa inuu kan kale development sameeyo taasoo labadoodii marka maxaa leenahay there is some interdependency jira midba midka kale ku tiirsan yahay kaasa waxa la yiraahdaa waa interdependence يعني midba midka kale marka uu ku tiirsan yahay industry-ga wuxuu ku tiirsan yahay agricultural-ka soo kale agricultural-ka wuxuu ku tiirsan yahay industry-ga ku tiirsan yahay so way isku tiirsan yihiin marka interdependency aan jira between agricultural and industry so laba dhinac ka fiirina marka in planned economy iyo in closed economy in planned economy waxa la yiraahdaa haddii economiga uu marka oo yahay centralized uu yahay wax walba dawladda ay soo go'aaminayso wax walba dawladda xaggeeda ay ka imaanayso relationka sidoo noqona industry-ga iyo agricultural-ka waa goorme waa haddii uu yahay planned economy so planned economy waa maxay waa centralized economy waa economy oo marka centralized ah oo go'aankeedii mar walba ka imaanayo from the government dawladda ka imaanayo relationka qaabku noqona in closed economy isagana relationka qaabku noqona in closed economy waa maxay waa haddii economiga waddanka uu yahay waddan marka economigiisa uu yahay mid xirxiran haddii uu yahay oo marka aanan jirin export and import ma jiro Soomaaliland anaga hadda exportna waa haynaa importna waa haynaa laakiin waddanka haddii cunaqabateyn la saaro macnaheedu waa maxay there is no export and there is no import labadaba ma jira waay so marka haddii waddanka labadaba aysan jirin relation interdependency-ga qaabku noqona kee soo horeeyo kee dambeeyo yani labadaba markaan ka leena maxaan ka fiirinaynaa industry-ga iyo agricultural-ka yaa soo horeeyo yaa dambeeyo haddii uu yahay economic uu yahay planned economy haddii economic uu yahay closed economy uu yahayna labadoodu yaa soo horeeyo yaana ku xiga yaa lagu tiirsan yahay yaana wax ku tiirsan meelahaasaan ka fiirinaynaa so waxaan ka bilaabaynaa marka in planned economy haddii economic uu yahay centralized economy hadduu yahay interdependency-ga qaabku noqona so maxaa leenaha marka agricultural development proceeds industrial development it's all due to the basic character of agriculture so macnaheedu waa maxay in agricultural development uu sameeyo maxay ku xiran tahay inuu industrial development uu sameeyo that's why in planned economy waxaa marka hore isbedel sameynayo ama isbedelka wuxuu ka imaanaa industrial development uu ka imaanaa in planned economy ama centralized economy when industrial development waa inuu dhacaa industrial development yaa muxuu koos gareynaa agricultural development uu koos gareynaa so that's why the basic character of agriculture waa maxay in industrial development uu dhaco in la helo fertilizer-ka in la helo machine-kii in la helo sidoo kale in la helo maxaa la yiraahdaa irrigation facility-gii wixii lagu sameyn lahaa tubooyinkii iyo motooradii in la helo taasaa maxay koos gareynay in agricultural development la gaaro isla fahnaa malayna concept-ga macnaheedu waa maxay in agricultural development uu dhaco maxaa qasab ah when industrial development waa inuu dhacaa وين لهلا all the input of agricultural وباهن هاي وكجاري كر development وكجاري كرو كم تاه التكنولوجيا ده وين لهلا تسامح يسود قلنا in agricultural development اللي جاره سمع كمركا الجو مركا in planned economy محبيس وحبيس industrial development يا بيس تسامح يكوز قرينه agricultural development اللي جاره so similarly the full development of agricultural depends on the industrial development. The industrial development marka la sameeyo ayaa maxaa la gaari karaa agricultural development. Taasoo dawladda maxay xoog saareen dawladda marka oo centralized ka ah
maxay xooga saaray in warshado casri ay keento in waddanka warshadihii ay horumariso all all facility ay u baahan yihiin beeraleyda inay siiso haddii xitaa sometimes ay u baahan yihiin in matooro iyo cagafyo inay isticmaalaan fertilizer haddii raba in waxyaa wax lagu bacriminaya haddii raba inay isticmaalaan dowladda waa inay usoo iibisaa oo dibadda loogu keenaa kadibna ayaga isticmaalaan so all of this activity dowladda waa inay samaysaa si agricultural development uu dhaco dowladda marka soo supply gareynayso dowladda waxaa fududeynayso haddii warshada ay jirtana dowladda warshadaasi ka bilaabay inay dhiirigeliso inay wax badan ay soo saaraan kadibna ay gaarsiiyaan agricultural sectorka ay gaarsiiyaan ay ku dhiirigelini taasaa maxay door weyn ka qaadanaya marka in agricultural development inuu yimaado ayuu door weyn ka qaadanaya conceptiga isla fahnaa malaynaa so industrial supplies agricultural with machines waa inta hadda aan sheegaya machines tools implements fertilizer and also maxaa la yidhahdaa tractor all of these inputs ayuu markaa ayuu soo supply gareynaa warshada so waxa uu warshada uu soo supply gareey oo dhanna waxay u noqonaysaa as input ayay waxay u noqonaysaa agricultural sectorki ayay waxay u noqonaysaa input kadib markaa as input marka uu isticmaalana ayaa waxay koos gareynaysaa in la gaaro waxa la yiraahdo agricultural development in la gaaro very easy noqonay so sameynayo industrial development ayaa wuxuu koos gareynayaa dhaanay agricultural development oo ah dowladdu maadaama centralized uu yahay waxay priority siinaysaa marka in wax walba oo facility ay u baahan yihiin agricultural sectorku uu u baahan yahay uu kaga baahan yahay industrial sectorku dowladda inay soo supply gareyso haddii xitaa dowladda ay kartay xitaa inay soo wada iibiso ay markaa ayagoo supply gareyso by lower cost by lower price inay dowladda ay ku siiso sometimes dowladda inay maalgeliso marka waxay u baahan yihiin oo industrial input ah ay u baahan yihiin inay marka ay soo iibsadaan oo marka agricultural development sidaa lagu gaaro waa option waaye ama soo maaha haddii waddanku uu leeyahay industrial sector waddanku uu leeyahay dowladda warshadahaas ayay markaa ayay dhiirigelinaysaa si more production ay u sameeyaan oo markaa ay u gaarsiiyaan a lot of items ay u gaarsiiyaan ama a lot of input ay ugu supply gareeyaan agricultural sector and then marka taa ay koos gareyso in agricultural development inuu yimaado waa marka fikradda marka oo planet economic qaabkaasu interdependency noqona laakiin hadduu economic uu yahay closed economy so in a closed economy one of the most important condition waa maxay waa the industrial expansion in la sameeyo taasoo lagu gaari karo industrial productivity simply in the closed economy maxaa there is no support or there is no export and import waddanka ma jiro so marka si industrial expansion loo sameeyo maxaa qasab ah in agricultural productivity la ziyaadiyaa simply so interdependency muxuu noqonaa when agricultural productivity high noqonaa oo high uu noqdaa si industrial expansion ama industrial development si loo helo so kana marka maxaa priority noqonaa maxaa base noqonayo agriculturalka base ah agriculturalka wuxuu gaarsiinaa industrial development kii horena muxuu ahaa industrialka base ah industrial development wuxuu gaarsiinaa agricultural development ayuu gaarsiinayaa so rising agricultural productivity support and sustain maxaa leenahay support and sustain industrial development marka kullama agricultural productivity kor loo qaado oo high laga dhigo la support gareeyo la joogteeyo ayaa maxay kor u qaadayaan industrial development keeni oo haabe u keeni by meeting the increased food needs of non-agricultural sector and a rising rural purchasing power labada factor waay not only as a raw material also the purchasing power of the agricultural guys yani dadka beerleyda ah ama cropska ka shaqeynayo ama livestock ka shaqeynayo purchasing power kooda waa inuu ziyaadaa si ay agricultural goods ay u iibsadaan waa in demand la helaa waa in customer la abuuraa so simple marka maxaa leenahay in closed economy waxaa lagu gaari karaa waxaa base noqonayo agricultural productivity so agricultural productivity waa in la ziyaadiyaa taasaa waxay koos gareynaysaa in industrial development inuu yimaado agricultural productivity qaabka u ziyaada by two factors factor one waa maxay because agricultural muxuu noo ziyaadinaa increase the food staffku oo u baahan yahay non agricultural sectorku oo u baahan yahay ayaa high noqonayo in la ziyaadiyo so kaa maxaan ka faa'iideynaa as a raw material waay as a raw material aan u isticmaalaynaa
warshada cabitaanka waxay isticmaalaysaa cambahaasi waxaas warshada tusaalaha caanaha waxay isticmaalaysaa wixii markaa livestock ka soo baxay warshada tusaalahan sokorta waxay isticmaalaysaa wixii markaa ka soo baxay qasabkii mid walba marka as raw material ayuu u isticmaalaa number 1 number 2 dadkii oo beeraleyda ahaa ama dadkii xoolo dhaqatada ahaana purchasing power-kooda waa inuu ziyaadaa so purchasing power-kooda ziyaadaa muxuu kuusgalaynaa inay demand sameeyaano agricultural products inay markaa iibsadaan taasaa maxay ziyaadinay agricultural development yaa imaanaya agricultural development yaa imaanaya so marka kan baseka waxaa noqonayo in agricultural development-ga marka agricultural productivity in la ziyaadiyo si marka expansion of industrial development ama expansion of industrial si uu u dhaco ama industrial expansion si uu u yimaado when agricultural productivity when la ziyaadiyaa waa inuu hay noqdaa so it has realized that in the long run that's in the short run waxaan ka hadlayno dhan waa in the short run waa yes so all of them marka waxaan ka hadlayno maxay waa in the short run waa but in the long run they are complementary to each other marka in the long run was dhamaystirayaan but in the short run interdependency-ga qaab ku noqona maxay ku xiran tahay which type of economy aan haynaa economigeena ma planet economy mise waa closed economy haddii planet economy yahay interdependency-ga waxa u horeeyo industrial expansion ama industrial development muxuu koosgareynaa agricultural development haddii planet economy yahay waay haddii closed economy uu yahay maxaa leenahay agricultural productivity ayaa muxuu koosgareynaa industrial development how by meeting increasing the food stuff and also by increasing the purchasing power of agriculturistic marka purchasing power ko in la ziyaadiyo waa haddii uu yahay marka that's in the short run but in the long run maxaa leenahay they are complementary in each other way is dhamaystirayaan kana wixii ka soo baxay intuu aadaa kan wixii ka soo baxana intuu imaana way is dhamaystirayaan labadaba way iska waayaan so their relationship should not be taken to be competitive in the process of growth of an economy so marka relation koodi ma naqanayo relation marka oo dad marka competition ka dhaxeeya ma naqanayo haddii midkood uu marka uu ziyaado midka kale ma yaraanayo there's no competition relation waa complementary relation way iska waayaan way is dhamaystirayaan way iskaabayaan way isku baahan yihiin midba midka kale kama maarmo they need to each other marka way isku baahan yihiin so in the short run the development and modernization of industrial and agricultural should take place side by side marka ama midkaan horumarka bilaabayo ama midkaan aan bilaabayo in the short run taasina maxay ku xiran tahay dhahnay ama waxay ku xiran tahay ma planet economy mise waa closed economy ku xiran in the short run but in the long run they are complementary in each other right so all the developing countries have realized this factor marka yani wadamada hadda aan leenahay way horumarin aan leenahay this factor way soo arkeen oo in the short run midkooda marka ay xooga saareen midka kale lagu bisgureeyay but in the long run all of them waxaa leenahay waxay noqdeen complementary noqdeen inay is dhamaystiraan ay noqotay so marka have realized this fact and they are planning for maxaa leenahay in industrialization as well as for modernization and development of their agricultural inay casriyeeyaan oo marka ay horumariyaan marka ay xooga saareen in the short run marka so marka in the short run maxaa leenahay labadooda mid kamid marka xooga la saaraya si kan kale loo kabo but in the long run there is a complementary relation ajiro oo labada dhinac